waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo kuna bagaadiyo kana hambaliyeeyo anigoo ku hadlaya magaca shirweynaha beesha habargidir ee Hobyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Qatar shalay heshiiska lagu kala saxiixday in la bilaabo dhismaha dekedda Hobyo arrintaas ayaan rabaa anoo ku hadlaya magaca shirweynaha habargidir inaan soo dhaweeyo kana hambaliyeeyo kana bogaadiyo ona mahad celiyo madaxda Soomaaliyeed sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Qatarba waxaan leenahay walaalayaal dhowr jeer oo warkada la sheegay oo dadku hoos niyadiisa u dhacday aan wax laga qaban inuu kanu noqdo mid wax qabta oo laga dhabeeyo ayaan ugu baaqayaa qodobka kale guddiga farsamada shirka dhuusamareeb ama shirka dib heshiinta galmudug war aan lagu ballamin oo halkan shirweynahan iyo ayagu aysan ku ballamin haddii la sheego waa war qaldan weeye waana la sheegay waxaan rabnaa guddiga farsamada dhuusamareeb iyo guddiga farsamada shirka Hobyo inay wada socdaan dhammaanteen aan wada soconno waxaad la socotaan galmudug khilaaf badan ayaa 4 sano soo dhaafay bay ku dhamaatay mid bulsho iyo mid siyaasadeed sababta shirkaan u qabsoomay ama la isugu yimid qayb ta koobaad bay ka tahay in la hagaajiyo beeshan wixii ka dhaxeeya la hagaajiyo beelaha kale wixii kala dhaxeeyana la hagaajiyo siday u dhisanto galmudug dhammaystiran oo caafimaad qabta sidii ra'iisul wasaaraha qaranku u sheegay taasaan doonaynaa ma ahan rajal kuma joogno mucaaradna kuma joogno waxaan ku joognaa in shirkaana ka beelahan wax noo taro shirka galmudugna uu noqdo mid aan dhicis ahayn intaas way ujeedadiisu